halkan daawada waa Gurmud Media qodobadaad ku daawan doontaan waxa kamid ah Dr. Maxamed Nuur Gacal oo ay wadatay dawladda Soomaaliya oo ku guuleystay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo musharaxiinta mucaaradka oo cabsi la soo diristay dhaqanka beesha Abgaal oo soo farageliyay khilaafkii cuslaa ee u dhaxeeyay taliyaha ciidanka xoogga iyo Cornel Baxsad ah oo ay isku qoys yihiin faahfaahinna dheeraad ah oo laga helay duqeyn la beegsaday laba saldhig oo ay leeyihiin al-shabaab iyo Generaal Tuur yar oo kamid ah musharaxiinta Galmudug oo dawladda siiyay digniin la xiriirta Galmudug haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxa ay tahay 17 bisha koowaad January sanadka cusub 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale oo ka dheeraada ku soo dhawaada daawadayaal markaan aan ku bilowno magaalada Dhuusamareeb waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrayana dastuurka dawlad goboleedka Galmudug iyo kan qaranka magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaa maanta oo Jimcaha lagu qabtay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug oo ay ku tartameen laba musharax doorashadu aad u kululeed ayaa waxaa ku tartamay xildhibaan Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo xildhibaan Cabdi Naasir Aadan Cismaan waxaana gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Galmudug loo doortay xildhibaan Dr. Maxamed Nuur Gacal ka hor doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa waxa tartanka iskaga haray Cabdullaahi Axmed Calasow oo kamid ah musharaxiintii gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug guddiga ku meel gaarka ah ee doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa shaaciyay in Dr. Maxamed Nuur Gacal uu helay 54 cod halka Cabdi Naasir Aadan Cismaan uu helay 34 cod hal cod ka kale uu halaabay waxaana codeeyay sida guddigu ay sheegeen 89 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug tirada xildhibaanada codaysay waa 89 sidaana codadkii loo kala helay Cabdi Naasir Aadan Cismaan wuxuu helay 34 cod Dr. Maxamed Nuur Gacalna wuxuu helay 54 cod hal codna waa xumaad sidaas daradeed gudoomiyaha dawlad goboleedka Galmudug oo sharciga ah waa baarlamaanka waa Maxamed Nuur Gacal wabillahi tawfiiq intii socotay codeynta ayaa markii musharax Dr. Gacal uu gaaray codka haldeeriga ahna 46 cod ayaa waxaan isqabsaday hoolkii ka socotay doorashada taasoo muuqatay intii codeynta socotay inuu helay tiradii guusha doorashadan oo ahayd mid xiiso gaar ah lahayd ayaa haddana waxa loolanka ahaa mid aanan ka marneen habka awood qaybsiga sida kursiga gudoomiyaha baarlamaanka cidda qaadan doonta musharaxan ku guuleystay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa waxa dabada riixisay sida ay sheegeen dad aqoon dheer u leh dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre markaana gobolka Shabeellaha Hoose wararka naga soo gaaraya deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in diyaaradaha dagaal ay duqeymo ka fuliyeen halkaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in duqeyntan la beegsaday laba saldhig oo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Kunya Barrow saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa dhankooda sheegay in duqeynta la bartilmaameedsaday xubno ka tirsan al-shabaab balse aysan saacin magacyadooda ma jiraan xog intaasi dheer oo laga helay duqeymaha ka dhacay deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose muddooyinkii dambe waxay diyaaradaha dagaal duqeymo ka fulinayeen deegaanada ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan deegaanada ay ka maamulaan al-shabaab shalay ayay markii saraakiisha ciidanka danab ee Mareykanka uu tababaray ay sheegeen sargaal al-shabaab oo qaabilsanaa qaraxyada ay ku dileen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka al-shabaab oo ku aadan weerarada dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay ka fulisay gobolka Shabeellaha Hoose diyaaradaha Soomaaliya duqeymaha ka geysta ayaa la rumaysan yahay inay leeyihiin wadamada Mareykanka Faransiiska iyo Kenya kuwaas oo bartilmaameedsada meelaha ay ku sugayeen ciidamada al-shabaab iyo madaxdooda dawladda Mareykanka ayaa sare u qaaday sanadkan cusub duqeymaha ay ka geysatay gudaha Soomaaliya tan iyo markii xilka madaxweynimo loo doortay madaxweyne Donald Trump oo dhawaan saxiixay go'aano kor loogu sii qaadayo duqeymaha ka dhanka al-shabaab ayaa ku xogan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Jubbooyinka waxaana inta badan duqeymaha lala beegsada al-shabaab ay ka dhacaan goobahaasi
dhaqanka Abgaal ayaa soo farageliyay khilaaf dagaal oo u dhaxeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo korneel ka tirsan ciidamada dawladda oo baxsad ah. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawaay Yuusuf Raagi, kulankaas oo ku saabsanaa xaaladda amniga gobolka Shabeellada Dhexe. Kulankan oo dhacay maalin kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay Cali Guudlaawe oo ka yimid Turkiga toddobaadkii hore ayaa looga hadlay xiisadda ka taagan degmada Raagaceelle iyo isbaarooyinka gobolka u yaala ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya qaab qabiil u abaabulan. Cali Guudlaawe ayaa Generaal Odawaay ka dalbaday in wada hadal ugu dambeeyo khilaafka cabsida sababay u dhaxeeya isaga iyo Korneel Masdili oo hadda saldhig ka dhigtay deegaanka Raagaceelle oo ay degan tahay beeshiisa. Warayashay warbaahinta ayaa sheegay in Odawaay uu cadaadis kale oo dhanka beeshiisa ah saarnaa uu ogolaaday inuu faraha ka qaado sargaalkan dooda u dhaxeysana lagu dhameeyo wada hadal. Sidoo kale xogta aan helnay ayaa sheegaysa in lagu heshiiyay degmada Raagaceelle laga soo saaro militariga ee ku sugan iskuul ay dadka deegaanku wax ku bartaan iyo in Muqdisho yimaado Korneel Masdili kadib wada hadal dhex mara isaga iyo taliyihiisa. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in wada hadal ku socdo inta badan la isku afgartay waxaana la filayaa in wixii lagu heshiiyay loo gudbiyo madaxweynaha Soomaaliya oo arrintaani hore loo gudbiyay. dhinaca kale gobolka waxaa ka socda qaadista isbaarooyin buux dhaafiyay kuwaas oo hagidgeliyay soo socodka gaadiidka dadweynaha kadib markii gaadiidleyda ay ku dhawaaqeen shaqo joojin. sargaalkan oo baxsad ka ah ciidamada xoogga iyo taliye Odawaay ayaa wuxuu ka mid ahaa saraakiishii xukuumaysay ciidankii Al-Shabaab ay ku laayeen deegaanka Ceelsadiid iyo gobolka Shabeellaha Hoose sanadkii aan soo dhaafnay 2019. inta badan saraakiishii ka taliyeysay xiradaasi ayaa haatan ku jira xabsiga dhexe Muqdisho kadib markii dawladda Soomaaliya ay go'aan ka soo saartay saraakiishaasi. Al-Shabaab oo xirada ku laayay ciidan ka badan kuntumiyo ayaa waxay ku furteen gaadiid dagaal iyo saanad militari aad u fara badan. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in shabaab inta weeraraan xiraha hadii hub laga qaato ciidanka joogay ka tirsan dawladda loo xukumi doono taliyaasha xukuma xirooyinkaasi. inta badan markii la xiray saraakiisha Ceelsaliin xukuumaysay ayaa sargaalkan iyo ciidamo ku beel ah waxay aadeen dhanka gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Raagaceelle. maalmihii u dambeeyay deegaanka Raagaceelle waxaa ka taagneyd xiisad u dhaxaysa ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya kuwa ay soo amartay dawladda Soomaaliya inay soo qabato sargaalkan iyo kuwa difaacaya. taliyihii hore Nisa Generaal Tuuriyere kala mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Galmudug ayaa digniin kula diray dawladda. Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Galmudug ayaa dawladda federaalka Soomaaliya uga digay inay joojiso faragelinta ay ku hayso dhismaha maamulka Galmudug gaar ahaan xildhibaanada la soo xulay. musharaxa ayaa ka digay in isqabqabsiga siyaasadeed Muqdisho loo soo raray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kaasi uu sheegay in dib u dhac iyo qalalaaso hor leh gelin kara dhismaha Galmudug loo dhan yahay. waxa uu sheegay in mushkiladaha Galmudug ay buddhig u yihiin laba qodob kuwaas oo haddii aan laga digtoonaan ay suurtagal tahay in Galmudug dhismaheeda la carqaladeeyo. Tuuriyere ayaa labadaasi sabab ku sheegay in xasilooni darro siyaasadeed oo ay sababteeda leeyihiin mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka ayuu sheegay inay saameysay Galmudug taasi oo laga baaqsan karay haddii wadiiqo sax ah loo mari lahaa sidoo yiri. hadalka ka soo yeeray Tuuriyere ayaa ku soo aadayay xilli maanta uu magaalada Dhuusamareeb kulan kula qaatay ku dhawaad 50 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka cusub ee Galmudug. musharax Tuuriyere ayaa ah musharaxa ka madax bannaan dawladda Soomaaliya iyo xisbiyada mucaaradka wuxuuna ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad doorashada Galmudug. dagaal xooggan ayaa dhex maray ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab sida ay sheegayaan wararka imaanaya Shabeellada Dhexe. wararka laga helay deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellada Dhexe waxay sheegayaan halkaasi uu ka dhacay dagaal xooggan oo geystay khasaare kala duwan kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo ururka Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar xoog ku qaadeen deegaankaas ku yaala duleedka degmada Cadalle ee Shabeellada Dhexe waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xooggan oo muddo saacada socday. dadka deegaanka qaarkood waxay sheegayaan dagaalku uu bilowday waa barigii hore maanta isla markaana ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalku waxay sheegeen iska difaacaan weerar kaga yimid dhinaca Al-Shabaab isla markaana ay gaarsiiyeen khasaare xooggan. warar kale oo hoose ayaa sheegay in uu jiro khasaare dhimasho dhaawac leh oo ka soo gaaray dagaalkaas labada dhinac isla markaana mararka qaar la maqlayo rasaas goosgoosa. daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen Gurmud Media.